fanaanka ugu shidan waxa uu qiraaya hadda oo fanaanada hadda xamar u dhalatay waa qadarkeeyo iyo dayax fanaanada ugu shidan hadda loogu jecel yahay ما شرم بوي على فنانين تمتدو كويس تشيغايان dagaalka alfanaan Sharma Boy iyo sidoo kale marwadiisii hore milyan maanka ayaa si aad u xoogeystay iyadoo saacadii ugu dambeeyay si aad baraha bulshada lagu faafiyay muuqaal video ah kaasi oo ay ka soo muuqatay fanaanad aan yiraahdo milyan maanka oo wax laga weydiiyay fanaaniinta kuwooda loogu jecel yahay deetana dafirtay isla markaana inkirtay alfanaan Sharma Boy kuna tilmaamtay inuu yahay fanaan aan wax murti ah ku haysan isla markaana haysiisa ay u badan yihiin kuwa raab oo malawaal ah hase yeeshee milyan maanka iyo dhanka kale waxa ay u qirtay in hibo faneed ay leeyihiin isla markaana fankooda aad u bulaalay ayna yihiin xidigaha lagu jecel yahay xilligan ee aan kala dhicin kuwaasi oo ay sheegtay in ay kala yihiin alfanaan dayaxdal nuurshe iyo sidoo kale qadarkeeyo hadalkan ka soo yeeray milyan maanka ayaa loo fasiran karaa in xurguf iyo dagaal aad u xoogan oo ka dhex aloosan yahay alfanaan Sharma Boy iyo sidoo kale xaaskiisii hore walow ay kala tageen sida aynu aragnay maalmihii ugu dambeeyana baraha bulshada si aad loogu wadwaday khilaafkoodii oo ahaa mid aad u xoogeysanaya dhawaanayeed markii la tabiyay ama la soo baahiyay furiinka ka dhex qarxay alfanaan Sharma Boy iyo sidoo kale marwadiisii hore milyan maanka sidoo kale waxaa jiray khilaaf aad u xoogan oo ka dhaxeeyay fanaankan Soomaaliyeed ee dhalinyarada aad ku xiiseeyaan Sharma Boy iyo sidoo kale saaxiibkiis faneed Maslax Mideeye kaasi oo markii dambe ay ka soo wada muuqdeen muuqaalo dhowr isla markaana ay wararkaasi ku tilmaameen kuwa ku turkuteen ayna muujiyeen sida ay isugu furan yihiin laabtoodana ay aad isugu xaaran tahay si kastaba ahaatee imika waxaa aad u baahaya muuqaalkan milyan maanka ay ka dhex muuqatay isla markaana ay si carale uga jawaabtay xilli wax laga weydiiyay fanaaniinta kuwooda lagu jecel yahay xilligan isla markaana fankooda aad u wanaagsan yahay tay ahaan iyo sidoo kale dhanka talentiga marka la eego fankooda uu yahay kuwo markaasi ku dayasho leh waxa fanaanadan ay hoosta ka xariiqday in fanaan Sharma Boy uusan ahayn fanaan aad markaasi marka la eego dhanka hibo faneed laga hadlayo aanu lahayn hibo faneed oo sidaas u weyn isla markaana heesiisa ay yihiin kuwa kaliya ku eg raab ama ku kooban heeso Soomaali aan wax murti ahayn hase yeeshee waxa ay sheegtay in fanaaniinta xilligan ay aaminsan tahay in ay yihiin fanaaniin aad ugu wanaagsan fanka isla markaana heesoodu ay dhageysan karaan da'yar iyo duqow amaba ay dhageysan karaan dhammaanba dadka fanka xiiseeya da'dooda doonaanba ku jiraane hase yeeshee waxa ay iyadu tilmaamtay in fanaaniintaasi ay yihiin kuwo aan kala dhicin oo hibo faneed leh isla markaana fankoodu aad u bulaalay haddaba milyan maanka oo xaaskii hore ee Sharma Boy ayaa iyadu la sheegayaa in weli markaasi xarash aad u xoogan ay u hayso fanaankan kadib furiinkoodii isla markaana weli dagaalkooda uu yahay mid aad u sii xoogeysanayo inkastoo aynu aragnay dad baraha bulshada inta badan kala tagoodu si aad loo faafinayo isla mar ahaantaana weli ka soo muuqanaya fiidiyoda qaar iyagoo isu muujinaya sida ay isugu calool furan yihiin isla markaana haddii ay jiraan awlaad dadkaasi dhex martay ama ka dhaxayso ay weli dhanka la macaamilkooda ama xiriirkooda iyo wadahadalkooda uu yahay mid sidiisii hore ah oo walaaltinimada ay weli aad u xoojinayaan hase yeeshee haddana sida muuqato Sharma Boy iyo ooridiisii hore ayaa weli waxaad moodaa in xurguftoodu ay tahay mid meel sare oo xasaasi ah gaadhay imikana muuqaalkaasi uu caddeyn u yahay siiba xilli wax laga weydiiyay fanaaniinta xilligan lagu jecel yahay jawaabteeduna ay ahayd mid dad badan oo ay sugayeen in ay soo hadal qaato alfanaan Sharma Boy maadaama uu yahay fanaanka kaliya ee dhalinyarada aad ku jecel yihiin xilligan sidoo kalena dhanka masraxiyadda iyo sidoo kale marka la eego heesaha sida teelteelka oo ugu soo saarayo ay yihiin kuwo inta badan aynan markaasi kula tartami karin fanaaniinta kale maadaama Sharma Boy uu aad u soo saaray heeso aad u tiro badan sidoo kalena aynan ku qaadan waqtiyo aad u badan marka la eego heesaha uu aadka tirada badan uu soo saarayo haddaba fanaankan inkastoo uu isu qiray inuu yahay xidig dhanka fanka kaalinta koobaad kaga jira isla markaana isagu aaminsan yahay in
talentiga uu leeyahay wax weliba uu ku samayn karo, halka uu doonana uu u adeegsan karo. Hase yeeshee haddana isagoo ka duulayo jiilka hadda jira ama dhalinyarada waxyaabaha ay xiiseynayaan oo u badan heesaha raabka, in uu isagu ku dadaalayo in uu soo saaro heeso ereyo kala gedsan ay ku jiraan ama erey bixino markaasi saameyn yeelan kara uu kusoo dhexdaraya heesahaasi. Haddana dad badan ayaa aaminsan in murti marka laga hadlayo iyo sidoo kale ereyada xikmadda leh ee dhalinyarada marka laga reebo dadka fanka jecel siiba da-da doonaanba ha ahaadaane ay dhegeysan karaan, iyo dadka waaweynba ereyada anshaxa iyo habmaamuuska wanaagsan leh la dhegeysan kara ay inta badan yihiin heesihii hore, isla markaana heesaha iminka jira ee dhalinyarada ay soo saarayeen ay yihiin heeso markaasi anshaxii iyo sidoo kale waxyaabihii lagu yaqaanay heesaha Soomaaliyeed gebi ahaanba aanu ku jirin, mudnaantoodana ay tahay kuwa markaasi sidaasi dadka fanka yaqaana aysan u jecleen. hase yeeshee fanaankan maadaama uu yahay fanaan si aada loo jecel yahay, isla markaana heese aada u tiro badan uu soo saaray, dhowaan ay ahayd hees ka mid ah heesihii uu soo saarayay xilli markaasi heestaasi ay noqotay midii ugu saameynta badneed baraha bulshadan oo dhalinyarada ay si aada uga falcelinayeen heeskan uu soo saaray Sharma Boy. erey ayaa ku jira oo inta badan marka la eego dhanka anshaxa loo fasiran kara in ay yihiin dhalinyaro heeso markaasi ama ereyo markaasi laga dheehan karo in waxoogaa ay ka gudbeen qaanuunkii iyo sidoo kale xeerarkii lagu yaqaanay bulshada Soomaaliyeed, maadaama jiilalka hadda joogo inta badan ay aada u daneeyaan heesaha Sharma Boy. si kastaba ahaatee milyan maanka ayaa waxaad moodaa muuqaalkan sida aadka loo hadalhayo in ay dhowaanba ka falcelin doonto, inkastoo haddana dadka sida aadka markaasi oo la socday xaaladihii ugu dambeeyey fanaanadan iyo sidoo kale fanaan Sharma Boy saacadihii aynu kasoo gudubnayba dadku intooda badan jawaabaha iyo ereyada ay inta badan ka baahinayeen ay ahayeen kuwo ay si aada ugu durayaan fanaanadan, sidoo kalena dhaliil ay ugu jeedinayaan. haddaba milyan maanka oo ka mid ah fanaaniinta xilligan da-yarta ama hablaha Soomaaliyeed loogu jecel yahay dhanka fanka, isla markaana magaalada Muqdisho ku nool fankeedana halkaasi kasoo hanaqaaday, ayaa iyada iyo sidoo kale fanaankan Sharma Boy waxa ay soo hayaan hal canug. dhowaan ayay soo gunaanudeen xiriirkii jacaylka, isla markaana xiriirkaasi oo ahaa mid ku lamaana wanaag iyo kalgacal iyo xiiso. hase yeeshee haddana ay sheegeenba in ay gebi ahaanba doorbideen in ay soo afjaraan xiriirkoodii iyo sidoo kale noloshooda guureed, isla markaana qof waliba uu jihadiisa uu qaadayo. waayahay muuqaalkan haddii aad ka heshay fadlan subscribe inoo saar, sidoo kale like garee videogan, sidoo kale videoda halkan aan kusoo gudbin doono ee ka dambeeya videogan fadlan la soco oo ku xidhno Maamuus Media Production, u sheer garee asxaabtaada si ay u helaan wararka halkan aan kusoo gudbin.